بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون سورة الروم أيام كسر دحشرني آيات لواتن إسدادات أيو درسيغني كبلا بنيا وحينو دنبي آياته الله سبحانه وتعالى قدرتيسا iyo awoodiisa laynoogu sheegayay ayadoo markii dambana si duuduuban laynoogu sheegay Allah subhanahu wa ta'ala inuu sifada ugu sareysa leeyahay macnaha shay kasta oo sifatu madhin ah oo la isku amaano Allah subhanahu wa ta'ala midda ugu sareysa leh ayadkii ka horeeyay waxay ka hadleen qudrada iyo awood hadii la yiraahdo ta Ilaahay baa ugu sareysa naxariis hadii la yiraahdo ta Ilaahay baa ugu sareysa maqal iyo arag haday noqoto ta Ilaahay baa ugu sareysa izzi iyo xikma haday noqoto ta Ilaahay baa ugu sareysa walahul mathalul a'la sifatul af'al hadayta ama sifatul dhaat ay tahay Ilaahay sifooyinkiisu sifooyinka khalqiga ma ah waa sifo kayfiyadeedii qaabkay u taalo bini aadamku xataa inaan macnaha wax way aqligoodu koobi karin iyo garaadkoodu toon aayadan marka daraba lakum mathalan min anfusikum waxay tusaale ka bixinaysaa qadiyatu tawxiid oo aad iyo aad quraanku u soo celiyay haddaan ka baxayna haddaan ku noqonayna haddana yani wax weeyaan mas'alatu tawxiid iyo xaq ilaahay waa asaaska ay diinta dhanba ku taagan tahay saas daraadeed waa gar in kolba lagu noqdo oo lagu soo celiyo oo haddana laga hadlo oo dhowr waji laga muujiyo si macnaha wax weeye loo fahmo tani marka tusaale laga bixinaya rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala daraba wuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay Allah subhanahu wa ta'ala mathalan mahma bisa'a jabli ayu idin yeelay min anfusikum mathal kaasoo min anfusikum nafafiyalkiina xaggooda ka ahaaday naftiina ayaa mathalka laga sameynaya waa ka mathalki hal lakum ma idin sugnaaday mimma malakat kuwa ay hanatay qaarkood aymaanukum midigyaalkiina kuwa ay hanteen qaarkood ama xaggooda ma idin ka sugnaaday min shurakaa kuwa wadaago idin la wadaaga fiima razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay dhexdiisa idin la wadaaga oo fa antum idinkiyo idilkuwa milkiyeyseen iyo idinkiiba sawaa'un kuwa siman aatihiin fiihi waxa aan idinku irsaaqnay adu simantiin takhaafunahum ood ka baqaysaan ka khiifatikum baqdintiina oo kale anfusakum nafyalkiina aad ka baqaysaan kadalika sidaas oo kale ayaanu nufassilu u faahfaahina u kala dhigdhignaa al-aayaati aayadaha liqawmin dad baan u kala dhigdhignaa yacqiluuna caqli lahu wax fahmaya wax garanaya bal iskaba dhaaf ittabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey ahwaa'ahum waxyaabahay naftoodu jeclayd bay raaceen bigayri cilmin yani ogaansho la'aan cilmi la'aan bay naftoodu waxay jeclayd iska raaceen faman kuma ayaa yahdi hanuunin kara man adalla Allahu cid uu alla lumiyay wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliya mathalku waxa weeye waxaa loo samaynayaa mushrikiintii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo khalqigiisa wax wadaajiyo wax isugu daray waxaa la leeyahay kuwa ay ilaahay wax la wadaajinayaan way qirsanaayeen inay addoommo ilaahay yihiin oo waa kan soo sheegnay markay maalan xajka iyo umrada iyo talbiyeysanayaan labbayka la shariika laka illa shariikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak bidijr mid wax kula wadaaga malihid mid wax kula wadaagood adigu leedahay oo isagu kula hayn mooyee tamlikuhu oo leedahay wama malaka isaguna waxba aan milkiin
asnaamtan marka inay ilaahay adoomadiisa ay ka mid yihiin way qirsanaayeen waxa la leeyahay marka tusaale la idin sameeynaya iyo mahmaahe idinka lafihiinana la idin ka sameeynaya bal u fiirsada adoomada aad leedihiin ilaan adoomay lahaan jirin adoomada aad leedihiin ee gacantiina ku jira ma ogoshiin oo raalli ma ku tihiin inay xoolihiina idinla yeeshaan oo idinka iyo iyagu aad xoolaha si siman ugu tasarruftaan sida aad mid xor ah markuu xoolaha aad isla leedihiin aad uga baqdo oo kale aad uga baqdaan yani markaad nin xor ah oo wax milkin kara oo rag ah wax idinka dhaxeeyaan oo xoolo isugu kin jiraan xoolaha inaad kaliga ku tasarrufto waad ka baqi soo marka adoomadiina raalli ma ku tihiin intay idinla yeeshaan xoolaha waxa ilaahay idinku irsaaqay intay idinla yeeshaan haddana inaad tasarrufkii xoolaha maamulkooda u sinaataan ood uga baqdaan sidaad uga baqi lahaydeen mid xor ah oo xoolaha idinla leh sidii aad uga baqi lahaydeen saasoo kale aad uga baqdaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya markaba waxay la soo boodayaan addoommadanadu seebay xoolaha naga noola yeelanayaan hadda waxaan ilaahay baa idinku irsaaqay ogow ma aha idinku maydaan jeebkiina ka keenin fiimaa rasaqnaakum wax alla idinku irsaaqay wey haddana addoommadaad lahaydeen inay idinla wadaagaan ma ogolidin waad ka santaagaysaan waad diidaysaan haddaad taa diidaysaan maxaad raalli uga noqoteen ood ku ogolaateen allaha khalqiga abuurtay addoommadiisa qaar ka mid ihi inay wax la wadaagaan inay cibaadada la wadaagaan inay baryada la wadaagaan inay gawraca la wadaagaan cibaadada inay la wadaagaan seed raalli uga noqoteen idinkuba raalli kama tiidin addoommadiinnu inay xoolihiinni iyo waxa laydinku irsaaqay idinla wadaagaan macnaheedu waxa weeye ma idinku waxaad isu quuri weydeen baad ilaahay u quudheen idinku isuma quudhaan mana rabtaan addoommadiinnu inay xoolihiinna idinla wadaagaan ood ku sinaataan seed marka raalli uga noqoteen oo idinka dhaadhacday ood ugu qanacdeen in alle iyo addoommadiisu wax dhex maraan oo wax wadaagaanoo alla maamulka kownkan iyo cibaadadiisa iyo xuquuqda khaaska u ah inaad addoommadiisa la wadaajisaan seebaad raalli ugu noqoteen saas way macnaha marka waa kaan soo marnay wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuuna waxay iyagu naftooda karaahaysanayaan oo inala rabin bay ilaahay u samaynayaan oo ilaahay subxana wa tacaala ma rabaan ayagu gabdhihii waa kuwii diidi jiray ma rabo inuu gabadh dhalo haddana ilahay bay gabdho u sheegayaan ma rabo in xoolihiisii lala wadaago addoommadiisu la yeeshaan haddana ilaahay buu doonayaa inuu addoommadiisii wax la wadaajiyo yani maamulka kownka iyo cibaadada ay la wadaagaan macnaha taasaa marka la leeyahy takhaafuunahum ka khiifatakum sidaasaanu aayadaha u kala dhigdhignaa buu rabbi leeyahay laakiin yaa ka faa'iidaysanaya liqawmin yacqiluun dad wax fahmaya oo inay wax fahmaan diyaar u ah laakiin dad uun ay kaga dhagan tahay waxaan soo gaadhnay iyo waxaa dhaqan noo ahaa iyo waxaa hiddan noo ahaa kuwaas waxba garan maaya saas caqligii oo dhan bayba qufuleenba meel bay ku xidhan kuwaasoo alla tilmaamayo wuxuu yidhi bal ittabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum nimanku inay xujo qaataan diyaaru ma ah laakiin hawadooday raaceen oo naftoodu waxay jeclayd unbay dabagaleen cilmi la'aan ma aha inay ugu qanceen asnaamtan inay caabudaan oo ilaahay cidaan ahayn baryaan cilmi kuma qancinin xujana mayna qancinin caqlina ma qancinin laakiin naftooda unbaa ka heshay sidaa unbay ka heleen maadaama awow iyo aabba ka soo gaadheen oo bulshadoo saa samaynaysa arkeen naftoodaasaa jeclaatay laakiin cilmi ku qanciyey iyo xujo ku qancisay ma jirto marka ilaahay baa inay lumaan qoray wey macnaha cid ilaahay lumid u qorayna cid hanuunin karta ma jirto cid u hiilisana ma ay helayaanoo cidina uma hiilin karta alla subxaana wa tacaala xaggiisa cid wax uga qaban karta ma jirto macnaha daraba wuu yeelay alle lakum idinka wuxuu idin yeelay maalan qisa cajableh mahmah ama qisa cajableh ayuu idin yeelay min anfusikum nafafyaalkiina xaggooduna idinka yeelay ama maalkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday maalka xaggee laga samaynayaa naftiinna idinka iyo qaabkaad u dhaqantaan iyo yani maalka laga keenahayaayoo laga samaynaya maalkii waa hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa malakat kuwa ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinu ay hanteen xaggooda ma idinka sugnaaday min shurakaa'a kuwa wax idinla wadaaga fii maa shay dhexdii rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay kuwa idinla wadaagaa xaggooda ma idinka sugnaaday addoommadiinna xaggooda ma jiraan
kuwa idinla wadaagaya risqi alla idin siiyey oo fa antum idinkadaasi waxay ku dhacaysaa iyaga iyo addoommadiiba oo fa antum idinkoo iswataay sawaa'un markaa aad tihiin kuwa ku siman fiihi risqiga dhexdiisii aad ku sinaataan oo si siman markaa aad u maamushaan ood ugu wada tasarufi kartaan ma dhici kartaa taas takhaafuuna xaalo aad ka baqaysaan yacni takhaafuuna xaalo aad baqaysaan oo hum addoommadiinna aad ka baqaysaan ka khiifatikum baqdintiinna oo kale anfusakum nafyaalkiinna aad ka baqdaan sidaad naftiinna uga baqdaan si la mida markaa aad addoommadiinni uga baqdaan ma dhici karto oo naftooda say uga baqaan anfusakumta waxaa laga wadaa waa dadka xorta ah anfusakumta yacni idinka xorta ah sida aad uga baqdaan nin xor ah markuu xoolaha kula leeyahay xoolihii uu kula lahaa inaad ku tasarufto sida aad uga baqdo si la mida markaa aad uga baqdaan addoommadiinna xoolihii ay idinla yeesheen inaad ugu tasaruftaan idinkoon talagelinin ama aan la socodsiinin ama ayna idinla ogeyn macnaha taasi ma dhici kartaa jawaabtu waa maya haddayna dhici karaynin oo addoommadiinnii si siman inay wax idinla wadaagaan diideen alla addoommadiisa maxaad wax u wadaajiseen allihii addoommadiisa seed wax u wadaajiseen raalli uga noqoteen kadalika sidaasoo kaleanu nufasilu u faahfaahin u kala dhigdhigaynaa al-aayaati aayadaha liqowmin dad baan u kala dhigdhigaynaa yacqiluuna oo wax kasay wax fahmayo waxa loo sheegayo dhuuxayo oo garanay bal iskaba dhaaf inay wax fahmaane ittabaca waxay raaceen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey ahwaa'ahum hawooyinkooday raaceen naftoodu say jeclayd bay raaceen bikayri cilmi la-aan xaalo ay yihiin ayagoon garanaynin yani waxa wey waxaan ay haystaan wax xujaa iyagoon u garanayn butlaankiisana aan garanayn ciribta xunee ka dhalanaysana aan garanayn cilmi la-aanba iska raaceen faman yahdii yaa hanuunin karaa man cid adalla allahu alla uu lumiyey wamaa lahu umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliya marka ma dhici karto adiga markaad raalli ku noqoto in lagula wadaago adigoo weliba waxan aad leedahay laylama wadaagi karo aadan asal u lahaynee alla ku siiyey haddaadan raalli ka ahayn addoonkaagii inuu kula yeesho alla iyo addoommadiisuna wax ma wadaagi karaan ha isugu darina baa lidhi macana fa aqim toosi wajhaka wejigaaga toosi liddiini diinka u toosi xaniifan xaal aad tahay ku leexanaya oo diinta saxdaa u leexanaya fitrat allahi halkaa waxaa ku jira iqraabay ku nasbsan tahayoo ilzamuu laazima fitrat allah alle qaab abuuristiisa fitrat allahi alle qaab abuuristiisa ama si u abuuridiisa allatii midaasoo fatara nnaasa dadka uu abuuray calayhaa korkeeda uu ku abuuray laa tabdiila yani bedelid laa tabdiila bedelid likhalqillaahi abuurka ilaahay uma sugnaanin dalika midka oo fidradaa ah ayaa addiinu diinkiya alqayimu ee toosnaa walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga muniibiina xaalo aad tihiin laazima fidradaas muniibiina xaalo aad tihiin kuwa noqonaya ilayhi xagga alla u noqonaya wattaquuhu iska jira alle wa aqiimuu toosiya alsalaata salaada toosiya walaa takuunuu hana noqonina min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya min aladiina kuwa ka mid ha noqonina faraquu yani kala qaaday faraquu kala jabiyey oo kala qaaday diinahum diintooda kala qaaday oo wa kaanuu ahaa shiyacan kooxaha ahaaday kullu xisbin xisbi kasta farixuuna kuwa farxaya weeye bimaa shay bay ku faraxsan yihiin ladayhim agtooda fa aqim wajhaka liddiini waxaa laga wadaa wejigaaga diinka ku toosi diinka wejigaaga ku toosi maxaa laga wadaa shayga markaad doonayso si buuxda inaad u qaabisho oodan midig iyo bidix toona uga leexanin waa inaad wejiga siiso waxaana laga wadaa diinta ilaahay qabso oo ku toos oo daa'im oo dhinaca iyo dhinac midna ha uga leexanin saasaa laga wadaa fa aqim wajhaka liddiini wejiga waxaa looga cabiray shayga aad mudnaanta siinayso eed qiimaynayso ee kula weyn ayaa wejigaaga iyo macnaha yaa wejigaaga lagu aadiyaayoo la siiyaa marka wejigaaga toosiyoo diinka ku toosi diinta ilaahay ku toos baa laga wada diinta ilaahay ku toos adiga oo diimaha kaliya dhaqamada kale oo dhan ka leexanaya ayada keligeedna xaggeeda u leexanaya
fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha. halkaa fitrat allahi daa tafaasiir badan baa ku jira, laakiin waxaa laga wadaa ilaahay fidradiisa laazima ilaahay fidradiisa. fidrada waxaa la yidhahdaa waa ficla. markii la yidhaahdo luqa ahaan ishtiqaaqeeda hala baadho waxay noqonaysaa ficlatun, oo waa ismu hay-a. ficlatun waa qaab, yani luqada carabiga waxaa la isticmaalaa marna waxaa la sheegi rabaa falku su u dhacay, marna falkii keliya la sheegi rabaa. maalan waxaa la dhihi yani jalasa wuu fadhiistay juluusan fadhi, marna waxaad dhihi jalasa jilsatan qaab fadhi ama si u fadhiisi. jilsatantu marka waxay cabiraysaa qaabkii fadhigu u dhacay, yani jilsatan sayi'atan aw xasanatan baad dhihi, qaab fadhi xun ama wanaagsan. ficla marka waxa weeye waa hay-a oo wuxuu sheegayaa qaabkii wax u dhaceen buu sheegaya. fidrada marka waxaa laga wadaa yani sidii abuurista ilaahay ay ahayd laazima, ama qaabkii abuurista ilaahay ay ahayd laazima. qaab abuuristii ama si u abuuridii qaabkii ilaahay uu u abuuray taas laazima baa laleeyahy. oo muxuu yahay qaabkaas? waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala markuu khalqiga abuurayay oo bini aadamka abuuray, abuuristuu abuuray wuxuu ku abuuray qaab iyo si, qaab gooniya iyo dabeicad gooni ah. dabeicaddaasi maxay tahay? waa islaamnimo iyo inuu diyaar u yahay inuu iimaanka qaato. yani waxa uu ku abuuran yahay, qaabka uu u abuuran yahay waxa weeyaan islaamnimo iyo diin iyo iimaan iyo toosnaan iyo inuu aqbalo oo uu qaato ayuu u diyaarsan yahay. oo qaab abuuridda iyo sida loo abuuray waa sidaa, sidii marka ay ahayd saa laazima baa laleeyahay, ka leexanina. fidrada marka taasaa la yidhahdaa, oo waa midda lagu dhasho. waa ka nabigeenu oranaya sal lay wasalam, yani kullu mawluudin yuuladu cala alfitra. ilmo kasta marka la dhalayo waxaa lagu dhalaa toosnaantaas iyo islaamnimadaas iyo diyaarsanaan uu u diyaarsan yahay inuu khayrkii qaato sharkana naco. fidrada taasaa la dhaha. markaa kadibba waxaa bedelaya sidii ilaahay u abuuray ama qaabkii uu abuuray ee wanaagga ahaa iyo islaamnimadii iyo toosnaantii waxaa ka bedelaya kolba bii'ada uu ku dhex noolyahay. fa abawaahu yuhawidaanihi, hadday aabihii hooyadii yahuud yihiin intay ka bedelaan fidradiibay waxay u bedelayaan yahuudi ka dhigayaan. hadday nasaaro yihiin intay ka bedelaan fidradii toosnayd bay waxay u bedelayaan nasraani bay ka dhigayaan. hadday majuus yihiin majuus bay ka dhigayaan. waxay bedeleen qaab abuuristii iyo sidii ilaahay u abuuray ee toosnaanta ahayd bay ka bedelayaan, ka wareejinayaan. laakiin asalka muxuu ku dhashay? wanaag iyo toosnaan. taa ilaahay uu khalqiga korkeeda ku abuuray taa laazima laleeyahay. oo macnaha waxa weeyaan waa ballantii aynu qaadnay suuratul acraaf markaynu soo marayn, alastu birabbikum soo alla ma dhih. inta layna soo ururiyey, dhabarka aadam laynaga soo ururiyey, alastu birabbikum, waxaynu nidhi balaa, waa tahay rabbigana, ogolaanay. tiibaa qalbigeenna weli kusii jirtoon ku dhalanaynaa markaan adduunka imaanayno inagoo ilahay ictiraafsa subxana wa tacala. qalbigu isagoo saasuu dhalanaya. waana midda fidrada shareecadu sheegaysa. middaas fidrada aayaddu ay sheegaysa taas wey. marka taa laazima. fidradii aad ku dhalateen, toosnaantii, islaamnimadii, khayr jacaylkii qalbigiinu ku yimideed ku dhalateen ee ilaahay idinku abuuray, middaa laazimo ha ka leexanina. waa ka xadiiska saxiixa nabiga oranaya sal lay wasalam, xadiid alqudsi, rabbi wuxuu leeyahay khalaqtu cibaadii xunafaa fajaa'athum shayaaiinu fajtaalathum can diinihim. yani addoommadayda waxaan abuuray buu rabbi yidhi iyagoo toosan, shayaadiintii baa u timid oo markaasay diintoodii ka leexisay. marka toosnaanta aan ku dhalanay khalqigu dhammaantii ku dhalanayo, ama waalidkii gaala ha ahaadeen ama islaam ha ahaadeen, markuu dhasho fidradaasu ku dhalanay. fidradaas laazima laleeyahay. marka wata fitrat allah, taas laazima, allatii fadara annaasa calayha, alla uu dadka korkeeda ku abuuray. dadka oo dhan fidradaa iyo qaabkaa iyo sidaasaa lagu abuuray iyagoo qalbigoodu hagaagsan yahay. laa tabdiila likhalqi illahi waxaa laga wadaa abuurista ilaahay subxaanahu wa tacaala wax bedelaayo ma jiro. laa tabdiila likhalqi illah laba macnay leedahay. diinta ilaahay lama bedeli karo. si kasta haddii laysugu tago
دين تا إله لما بدأ خلقك بمعنى الدين إن لقد جوا تفسير علم بدن السلف كم إذا أمريا أما لا تبديل لخلق الله أبورك إله فطرة إذن كو أبوري هبدلنا ومركا وخبر بمعنى الطلب فطرة إله إذن كو أبوري توصلانتا قلبي جينا قلي كل لتين لا تبديل لخلق الله هبدلنا أبوركاس سيدا كسعدا oo ka qaata kutubtii rusushiiba si qeexayso si cadaynaysa midda ka qaato ku sugnaada ilaa intaad kaga dhimanaysaa way macna dalika ad-diinul qayyim diinka toosani waka diinka toosan waa midka lagu dhashay kadibna rusushu la timid kutubtii ilaahay soo dejiyay lagu sharxay diinka toosan waka oo alla kaligi in laga dhigto macnaha la caabudo waxa kale tan cibaadada lagu kufriya laakiin dadka intooda badan ma ay oga rabbilahi subhanahu wa ta'ala kadiba waxa leeyahay marka aad laazimaysaan ilaahay fidrada marka aad laazimaysaan waa marka aad noqonaysaan idinka oo noqonayo xagga ilaahay u noqonay oo de fidradii ku sugnaada waa kama laazimayso mar walba inaad ku sugnaato waad khaldami kartaa bini aadamku waa gaf badan yahay mar baad ka bixi kartaa oo fidradii waxay keenaysay oo toosnaanta ayd baad ka leexan kartaa maxaa lagaga baahay markaas oo kale muniibina ilaahay soo noqon ku sugnow markaad ka baxdana ku soo noqo alla iska jira cadaabkiisa iska jira salaadana toosiya mushrikiintana kuwa kamid ah noqonina wala si caday waxa leey kuwii kuwa kamid ah noqonina farqu diinahum diintooda qaybiyay farqu qiraa'ada markii la yiraahdo waxay noqonaysaa yaani badalu wa ghayyaru wa aamanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd diintoodii bay intay bedeleen bay qaarna rumeeyeen qaarna beeniyeen diintay qaybiyeen oo diintii bay qaybsadeen oo qaarba in qaatay كفروا ببعض وآمنوا ببعض تاسا لذا فرقوا لأن التفريق وقيبين دينتي وقارن له كفري قارن لقاتي وهي معنا قراءة كلا شفتوا إذا متواتروه فارقوا دينهما مركا وحي نقونيسا دينتو دا كوا كتغيها نقونين كوا دينتو دي بكتغيها خرافات كلا إيا مبادئ كلا يطلقما كلا انتي سميستين دينتي بدورك اوتشيري كوا هنقونين معنا وكانوا شيعا دينتي هدين لقتغو محا إيماني أما الدين تيبا القيبيو وإن لكوح يبا مركز كوح لو قيبسم شيعا كوح والبنا انتي هايستي كفر أحسنت هاي وقمنا هذا قورت أوجرا وحيوها هايستا وحكا قم بإنسنجا بل يهوني انت كوح هذا وقيبسن تفيري سيدو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم تضباتني يكو كوح ومن دم دك لقاليسينيس نصارنا وحيو قيبسن تضباتني يصدح كوحات وكوح بكوح دك لقاليسينيس ومدننا وحي أقيبسن النبي صلى الله عليه وسلم تضباطا إيا الصدح كوحود حال مدبانا جنة كجلسة النبي صلى الله عليه وسلم انت كلو أهل النار كوحدة جنة جلسة وكوحدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا أصحابتي سيمان كا وحي هايستين الدين أها ضدك هايستا هلكا كوحدة بدباديس انت كلو أهل النار نار تيجلي يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركا واساسو يعني ضدك هدي دينتي قار كتغان oo qaybsadaan ama diintiiba laga wada tagay in koox la noqonayo oo firaq la noqonayo oo la islaacnadayo oo la istakfiirinayo oo diinta la iska saarayo waa laazim waay maxay yeelay dadkan waxa ururiyo oo mideeyo waa diintiyo si buuxda loo wada qaato mabaadi'deedii oo qaar laga tagin yaa sababka koobaad u amidnimada iyo dadku inay israacaan haddii laakiin diintii la qaybsado waxa way khatarteeda leh marka waa la qaybsamayo koox walba intooda la quman marka saas weeyaan فأقم توسي نبي وجهك أما عد كستو الله الله أقم توسي وجهك وجهك توسي للدين دينك أتوس حنيفا حال أتاي من حنيو حمانتك اللي حني أما حنيفا حال أتاي ديمها بعض الكاميتك اللي حني مد الصحراء حق يقول اللي حني فطرة الله إلزموا لازمة فطرة الله سيء أبو رد الله أما قاب أبو رد الله qaabka alle uu u abuuray khalqigiisa oo toosnida iyo khayr jacaylka iyo tawxiidka iyo iimaanka fidra qaab u abuuridaas laazima allati fidradaas oo fadarannaas dadka uu abuuray calayha korkeeda uu ku abuuray sidaas dadka lagu kor abuuray tawxiidkaasay ku dhashaan islaamnimadaasay ku dhashaan toosnaantaasay ku dhashaan la tabdiila badalid li khalqi illahi abuurista ilaahi uma sugnaanin abuurista ilaahay uu khalqiga ku abuuray korkeeda oo fidrada ah bedelid male macnaha bedelina
sidaa ku sugnaada oo ku weynaada oo ku koro oo ku dhinto oo iyada halaydu soo saaro way macna la tabdila li khalqi illah bimacna wa yani khabar bimacna talaba way macna yaan la bedelin dalika midkaasi ayaa ad-diinu diinka alqayyim ee toosan walakinna akthara an-naasi laakin dadka intooda badan la yaclamuuna ma iyoga shirkigu marka dib buu ka yimaada sidii markii horeba ilaahay samaawaadka dhulka uu abuuray aadamna soo dejinay tawxiid buu leeyahay bini aadamka tawxiid ba asal ah shirkigu sidii sabab dib buu ka yimid saas kadalika ilmuhu markuu dhasho oo adduunka uu iimaanayo tawxiid buu la iimaanayo shirkigu dib buu ka iimaanayo mar walba shirkiga marti asalku waa tawxiid saas macna munibina hala'atihim lazima fitrada lazima munibina hala'atihim kuwa noqonaya ilayhi xagga alla u noqonaya wattaquuhu iska jira alle wa aqimuu toosiya as-salata saladana toosiya wala takunuha ahanina min al-mushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ha noqonina min alladina kuwa kamid ha noqonina farraqu kala geeyay oo qaybiyay diinahum diintooda qaybiyay oo qolba meel ay ku dhigtay macna oo adarkaysa dadka qaarkii kooxaha qaar waxay ku leeyihiin siyaasadda u bandanaynaa qaar waxay ku leeyihiin ma anagu waxaanu danaynaa cibaadaadka u baan khuseeya qaar waxay leeyihiin ma anagu jihaadka u baan khuseeya wax alla waxaan qodobka ayagu ay wataan waxooga cagta dib uga yar hayana wuxuu ku leeyahay waxa diinba ma haystaba waa natiija xatmiyo marba hadii diintii si buuxda aan loo qaadanin oo sidii shariicadu u kala hormarisay aan loo kala hormarin in la qaybsamayo waa qasab qaybsan macna mushrikiintu say u qaybsamaan kala marka diintooda kuwa qaybiyay ama diintooda ka tagay oo wakaanu ahaaday marka shiican kooxa noqday kullu xisbin xisbi walbana bima ladayhim waxa agtooda afariixuna kuwa ku faraxsan marka yaani firqadu waxay noqonaysaa ama iftiraaqu dadkan iskhilaafsan waxay isku hayaan asal kamida usuusha waaweyn ee shariicada waa iftiraaq marka kulliya min al-kulliyat sidoo imam Shaatibi leeyahay alayhi rahmatullah ama juz'iyat farabadan oo kulliya noqon kara isku khilaafsan yihiin markaana iftiraaq baa la dhahaa laakiin khilaaf waxa jira aan iftiraaq ahayn الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بآد تأصيلين تأي مسائش نوعا سوكلا تدقيقين تودا آد أقفي عن كتاب كيس موافقات كأيو اعتصام كأيو كل معنى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا قرت مس أوتات الناس ضدك مركو تاتو ضر لب مركو تاتو دعوا ويتوغان ربهم ربي قد بيتوغان منيبين حالائهم كوان نقني إليه حق الله نقني ثم كذبنا إذا قرتي أذاقهم أوددنسيو الله منه حقيس رحمة النحريس مركو كددنسيو إذا مركب فريق كوح أو منهم ضدك كملا بربهم رب قد بيشركون لوداتينيا ليكفروا ما حي لوداتينيا ليكفروا إني كفريان درتد بما شيء آتيناهم أنسيني إني كفريان درتد فتمتعوا الراحيست هذا الكيو أيق اللو تشيدي فتمتعوا الراحيست فسوف تعلمون ديبات كأوغان دونتان أما سأنزلنا موحا دجنا عليهم كركضا موحا كدجنا سلطانا حجو أو فهو سلطانك يتكلمه هليا بما كي أيوكو هليا كانوا أي أهايان يشركون كولا وداتشيا يشركون كولا شريكيا به أي بسببه إساق السببتي كي أي شركي أقلي تشيرين مكاسو سلطانكو كوهليا وإذا قرتي أذقنا أن ندسين الناس ضدك رحمة النحريس مركان ندسين فرحوا ويفرحان بها نحريس تبكو فرحان كبير بالغا وضعي ويكو كبران وإن تصيبوا ما دي أصيبته سيئة مدي حمد هدي أصيبتنا مد حمي هدي أصيبتنا بما شيء سببتي أيكو أصيبته قدمت أي هرمرسي أيديهم كعمحوضو إذا مركابا هم إيقو يقنطون كوقوصنا يوي أولم يروا مينا أركين أما أين أغين أن الله ألي يبسط إنه فديه الرزق رزقك لمن يشاء عدو دون إنه أفديه ويقدر إنه عدير على من يشاء إن في ذلك أرنك دحديث وعقسقا لآيات على مدوين لقوم ضد بأقسقا يؤمنون أرميني بني آدم كتب عبدي سالينو شيء لباتا هذي دابط ربي قد بأويا دان ويقول واقدان أيقو ولي بحقي سأقول نقني منيبين إليه وحي وكلا بني حقا مركي لا يرحنوا تشيو ولباتا تابط لباتا محيط أبارا أما علاط أما مهي عذره أما القرير أما وحون ضر أمركو تابط مركاب علاعل إيا قيلة بالله بيا إيا النقشو أي صون نقدان markii inta laga qaado bedelkeedii naxariis loogu bedelana oo wixii laga faydo
markaaba waxay bilaabayaan inay ilaahay iyo khalqigiisa wax wadaajiyaan oo ilaahay ku kufriyaan subxaanahu wa ta'ala yani mantay dhibaatadu haysato ilaahay unbay yaqaanaan markay barwaaqada loo baxana 100 sanam oo la halmaamay baa meelaha laga soo urursanay markaasaa ilaahay la garab dhigay wax la wadaajinay maxay saa u yeelayaan waxaan siinay inay ku kufriyaan daraadeed wixii ilaahay keligii siiyey keligii in lagaga shukriyana ay ahayd inay ku kufriyaan oo cid kale ku caabudaan shirkina ku galaan taa daraadeed bay saa u yeelayaan raaxaysta bale hal raaxaysteen waxoogaa maalmo ah iska joogeen dib bay ka ogaan doonaan xumadooda iyo waxay samaynayaan waxa ka dhashay dib bay ka ogaan doonaan macna mise wuxuu rabbi ilaahay subxaanahu wa ta'ala mise waxaanu dushooda ku soo dejinay suldaanku waa xujada mise nimanku xujaanu u soo dejinayo xujadaasoo hadlaysa shayga ama midka ay ilaahay ugu shariig yeelayaan sababtiisa xujo ku hadlaysa miyay hayaan maya wey macnaha waxa weeye ma waxaa jirta wax xujo ah oo ilaahay soo deji oo iyagu ay hayaan oo sheegaysa waxa ay samaynayaan iyo shirkiga ay gelayaan inuu sax yahay ma la helayaa midda ayada maya istifhaamtu waa inkaari ma jirta way midaasina macnaha marka waa uun xujo ma hayaane laakiin iyaga naftooda unbaa ka hesho wey macnaa saan horeba usoo marnay insaanka rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala markaanu naxariis dhadhansiino way farxayaanoo waa kibrayaan markay mid xuni asiibtana oo midda xun waxaa laga wadaa masaa'ibtaa dhacaysa ee ay dhibsanayaan markay ku dhacdana ayadoo weliba gacantooda horumarsatay sababta ay u imaanaysana ay tahay gacmahoodii iyo waxay iyagu shaqaysteen markaaba way quusanayaan rajada dhan baa ka baaba'aysa bal adigu u fiirso waxoogaa marka la siiyo ladan yihiin oo barwaaqo ku jiraan waxaan loo joogaynin kibirkooda iyo qooqooda iyo isla weynankooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala siday ula dagaalamayaan markii tii inta laga qaado waxoogaa sayi'a ay taabatana cudurraa ku dhacay caafimaad xumaa timid yacni abaaraa dhacay colaad baa lagu riday dhulgariir baa lagu sameeyey dalagiibaa ka xumaaday yacni waa la yaro qandhuuftay waxoogaa yar baa dharbaaxa yar lagu dhuftay intaa yartaa markay arkaan oo weliba gacmahooda kula yimaadeenna waxaad arkaysaa markaba iyagoo quusanay rajada dhan baa ka baaba'aysa wuxuu isleeyahay wallahi tani bas wax yani damba laygama leh wax layla rabaa maba jiraba quusad buu gelaya shalayna waa kibirsanaa maantana waa quusad maxaa la rabay shalay markuu waxaystayna inuu shukriyo maanta hadday musiiba ku timidna inuu sabro saasaa loo baahnaa adiga waxaa lagu leeyahay yani ilaahay subxaana wa tacaala kownkan isagaa maamulay risqigan addoonku u waasicinayana waa imtixaanayaayo bal inuu ku shukriyaa la fiirinaya midna waa ku cidhiidhiyayaayo bal inuu sabraa lagu fiirinaya hawshu saasaa maamulku u socdaa aayadaha noocaas oo kalena dadka ahluliimaanka unbaa fahmo oo ka faa'iidaysta macnaha dadka sidaa u garta waa dadka ahluliimaanka oo dadka ahluliimaanka maxay sameeyaan ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaati baynu soo marnay dadka sabra markay ay dhibaata taaganta markii ay barwaaqa jirtana camal saalixa iyo shukri isku mashquuliya kuwaasu iyaga kuma jiraanoo tilmaantan kuwale ma ah tilmaantan qur-aanka had aayaduhu sheegayaan waa dadka xunxun ee gaalada ama dhaqanka qaalada ka qaatay wey macnaha ama ruuxa mu'minka asagu markii dhib jirana waa sabraya dheefi markay timaadiyo barwaaqana waa shukrinaya laba goorba khayr bay u tahay sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam wayda goorti masta u taato annaas dadka durrun dhibaata markay taabato dacaw way tuugaan rabbahum rabbigood bay tuugaan oo u yeedhaan muniibiina xaala ayhiin kuwa noqonaya ilayhi xaggiisa u noqonaya uma kadibna idaa goortii adaaqahum insaankii caadiga la yaqaanay waa saas laakiin bal adigu soomaali u fiirso dhib intuu taabtay bayna haddana soo noqon laayeen ya malaha kuwan laga hadlayo waaban ka qallafsannahay inagu kuwii dhibka markuu taabto waxoogaa dharbaaxa yar la taabsiiyo intay cabaadaan bay markaba soo laaban jireen laakiin inagu waxbaan kasii qaadaynaa dhibka laftiisii unbaaban kibir iyo xumaan baan kasii qaadaynaa wixii daawo ahaabaa inaga inugu ah cudur inugu ah wixii ummadaha lagu daaweyn lahaa oo lagu soo celin lahaa unbayba soomaalidu kusii fogaanaysa waa wax la yaab la wey macna dacaw rabbahum muniibiina xaala ayiin ilayhi uma kadibna idaa goortii adaaqahum alla uu dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmatan naxariis idaa markaaba fariiqun koox oo minhum ayaga ka midii yushrikuuna way la wadaajinayaanoo way u shariig yeelayaan birabbihim rabbigood liyakfuruu inay kufriyaan daraaddeed sababteed inay kufriyaan daraaddeed bimaa shaygii aataynaahum aanu siinay laamtaas haddaad ilaahay qadarkiisa u fiirisana waa laamu tacliil
haddaad ayaga ficilkooda u fiirsana waa laamul caaqiba saasay macnaha noqonaysaa saan horey usoo baran fatamattacuu raaxaysta fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaane amase anzalnaa miyaan dejinay calayhim korkooda ma waxaan ku dejinay sultaanan suldaan xujo miyaanu korkooda ku dejinay oo fa huwa suldaankaas yatakallamu wuu hadlayaa bimaa kiibuu ku hadlayaa weli su-aashaa socoto oo fa huwa suldaanku yatakallamu wuu hadlayaa bimaa kiibuu ku hadlayaa miya kaanuu ay ahaayeen yushrikuuna kuwa shariig yeela bihi sababtiisa shaygay sababtiisa shirkiga u gelayeen miyuu suldaankaasi ku hadlayaayoo sheegayaa inuu saxya ma suldaankaasi iyo xujo noocaasi may hayaan oo dhaqan xumadooda iyo shirkigooda iyo kufrigooda sheegaya inuu saxya ma hayaan way kaana macna ma jiro waidaa goortii adaqna aan dhadhansiina annaasa dadka raxmatan naxariis farixuu way farxaan bihaa naxariistii bay ku farxaanoo barwaaqadii ilaahay bixiyey bay ku kibraan wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun mid xumi xumaan hadday ku dhacdana bimaa shay sababtii ay ugu dhacdo qadamad ay hormarisay aydihim gacmahood idaa markaaba hum iyagu yaqnatuuna kuwa quusanaya wey oo markaaba quusad bay gelayaan iyo inay isnacaan oo rajadii ka dhammaato awalam yarow miyaynan arkaynin ana allaha alla yabsutu inuu fidiyo arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono inuu u fidiyo oo wayaqdiru uu cidhiidhiyo calaa man yashaau ciduu doonana inuu ku cidhiidhiyo alla subxana wa tacala arrintu mashii'a ilah iyo doonidiisay ku xidhantay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay oo yu'minuuna rumaynaya faaatisii dal qurbaa dhowaanshaha midka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii waalmiskiina miskiinkana sii wabna sabiili jidka wiilkiisa socotada dalika midkaa oo inaad siisa xuquuqdooda ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwabay u khayr badan tahay yuriiduuna doonaya wajha allahi ilahay wejigiisa doonay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min riban siyaada ah liyarbuwa inuu kordho daraaddeedna aad u siiseen fii amwaalinnaasi dadka xoolahooda dhexdiisa inay ku kordho dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku kordho dartii aad u siiseen falaa yarbuu ma kordhayo ma siyaadayo cinda allahi ilahay ka siyaadi maayo wamaa shayga aataytum aad siiseen oo min zakaatin sadaqa ah aad isku dahiraysaan turiiduuna xaalo aad doonaysaan taasoo turiiduuna aad doonaysaan wajha allahi ilaahay wejigiisa idinkoo doonaya fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna labanlaabka kuwa u saaxiibkaa wey kuwa labanlaabka helay oo ajirkoodu labanlaabmay kuwaa weye yuu rabbi leeyahy subxana wa tacala dadka xigaalkaaga iyo midka dhowaanshaha u saaxiibkee kuu dhoweey qaraabadaada xaqiisa sii xaqiisa waxa weeye xaq xoolahaagu xaq ku leeyahay xidhiirin buu kugu leeyahay wixii aad la dheer tahay ama cilmi ama sad ah inaad wax ka siiso ayuu leeyahay xaqaasi ma aha waxaad adigu ku tafadulayso samafal ama waa xaq ilaahay u gooyey subxana wa tacala isagaaba iskale xaq uu leeyahay oo gacantaada ku jira wey marka sii baa lagu leeyahay oo xoolahaaga aad leedahay qaraabadaadu waxbay ku leedahay saas daraaddeed baa nabiga wuxu uhi sal lla alay wasalam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim qaraabogoysku janno ilaahay ma galo marka aakhiro la tago yacni waxa weeye raximkii ilaahay bay u dacwoonaysa raximkii ilaahay bay u dacwootay markaasaa alla wuxuu yidhi soo raalli kuma tihid ciddii ku goysana inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan ku xidhiidhiyo haabay tiri taasaa ballan abuu rabbi subxana wa tacala marka qaraabada ha goynin oo dadka xigaalkaagee kula dhashay yacni xoolahaaga wax ka sii khaasatan dadku maanta waa tabaalaysan yihiinoo waa la dhiban yahay oo waa la qaxay oo waa la rafaadsan yahay adiguna milyaneer baata waa dhereegsanta oo accountiga wax kaaga buuxaane xoolahan dadka qaraabada wax ka sii waxbay ku leeyihiin ma aha tafadul ma aha ilaahay baa u gooyay xaqooda si mana aha sakadii lagama hadlayo sakadii maaha wax laga hadlayo waa xaq kale oo qaraabadu leedahay macnaha sakaduna waa xaq aan sakada ahaynna xoolaha waa lagu leeyahay mid baad u tegaysaa waxaad leedahay war dadkan tabaalaysan oo dhibaataysan waxsi wuxuu ku leeyahay war sheekh anugu sakadii horaan u bixiyey oo saka waxaanan maba bixisid miya maba yaqaana waxaan saka ahayn nabigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam ina fi lmaali la xaqan siwa zaka buu nabi sal lla alay slam xoolaha waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh sakada xaq dheer oo dheeraad ka abaase xoolaha lagu leeyahay marka qaraabadaada xidhiidhiyo xaqooda sii miskiinkana xaqiisa sii waa ruuxa waxaan ku filan aan haysanin
socotada sahaydu ka go'day ayadana siibu rabbi subhanahu wa ta'ala waxay sahay ka dhigato oo meeshay ku socoto ay ku gaadho saasa khayr badan inaad wax bixisaan oo dadka wax siisaan ba khayr badan yay u khayr badan tahay dadka ilaahay wajigiisa doonay lilladina yuriduna wajha Allah adiga marabta maalinta aakhir inaad ilaahay aragto soo wajiga ilaahay ma doonaysa wa akbar ummiyo shay la yidi diisho la raadiyo shayga ugu weyn jabada xataa ka weyn ilaahay aragiisa iyo wajigiisa subhanahu wa ta'ala taa marabta xoolahaaga ku gaar saasa lagu leeyahay xoolahaaga ku gaar dadka ilaahay wajigiisa doonayo qasadka ay xoolaha u bixinayaan ay tahay ilaahay dartii iyo rabbiga subhanahu wa ta'ala abaal gud haydan kasi dadkaasi waxa way kuwa liibaanay uu rabbi subhanahu wa ta'ala qola kala leeno shay oo xoolahooda iyagu saa aan u bixinin qoladaasi ilaahay liibaanay ee ajirka ka helaya waa dadka xoolahooda u bixinaya wajiga ilaahay amaan ma rabaan magac ma rabaan abaal gud kama rabaan ilaahay agtiisa bay wax kaga doonayaan qolo kala jirta marka qoladaas maxay tahay waa qolo wax bixiya laakiin shayga uu bixinayo wuxuu doonayaa inuu dadka uu siinayo xoolahooda dhexdiisa ku siyaado 100 shilin buu ku siinaya 100 shilin ee uu ku siiyay wuxuu rabaa inay xoolahaaga dhexdooda ugu siyaado berrita aad u celiso iyadoo 200 ah taas ilaahay agtiisa siyaadi mayso rabbi subhanahu wa ta'ala laba macnay soo galaysa marka waa mid hadiyad baad bixinaysa ama dad baad wax siinaysa niyada kuugu jirtana waxa weeye ruuxan aad wax siinayso waa ruuxaad wax kaga rabto waxaad rabtaa berrito intaad siisay in ka badan inuu kugu soo celiyo ilaan dad baa qaabka wax u bixiyo waxaad arkaysaa dadka qaarkiyo nin taajira mooyee nin kale aan wax siininba muxuu rabaa ninka taajir wax siinay soo ma doonayo wixii uu bixiyay oo u laaban in berrito uu soo noqoto soo dad baa u bixiyaba hadiyadu bixinayo sadaqadu bixinayo wuxuu doonayaa inuu gacan kugu yeesho oo intuu ku siiyay intay u korodho xoolahaaga dhexdeeda ugu korodho iyadoo siyaadsan inaad berrito u celiso haday marka hadiyad iyo sadaqa ay tahay ajir ka heli maayo laakiin dambina ka soo gaari maayo adiga waxa weeye hebel baad wax siinaysaa hadiyad baad u geynaysaa waa nin madaxa waa nin dhaqaale leh waa nin aad isleeda wax ka sugayso niyadaaduna waxa weeye intaad siisay in ka badan aad ka heshid waa wixii ka bixi haddaad wax ku hesho waxaad ku rabtay adduunyada ahayd ku heshana yani waa meesheed haddaad weydana qaday ilaahay agtiisa xukumay falaa yarbu inda allah qolada labaadna oo aayada iyadana soo gali karta waxa weeye waa ribadii caadigeed naqaanay way macna waan ku dayminayaa 100 shilin baan ku dayminayaa waxaan rabaa inaad bisho markay dhamaato aad ii keento iyadoo 150 waa dayn taana waxa weeye waa loonkii bangiyada laga qaadanayo duyuunta dadku isa siyaano ayadoo siyaado wadata liisu soo celinayo taasi ilaahay agtiisa siyaadi mayso dambina waa la dheer tahay oo iyada dambi baa ka soo gaaray waa ribada markaas طيب laakiin midda ilaahay agtiisa siyaadaysa ma taqaanaan wama aataytum min zakatin turiduna wajha Allah sadaqaad ilaahay wajigiisa ku rabtaan ha ku badato ma aha magac kuma raadinaysid ilaahay wajigiisa aad ku doonaysaan fa ulaa'ika humul mud'ifuna la laabida dadka u saaxiibkee ajirka loo labalaabi waa kuwaas rabbi subhanahu wa ta'ala saas macna marka adiga niyadaada ku xiranta innamal a'malu binniyat qasadkaad kala leedahay waxay tahay waxaad bixinayso saas macna marka midna ilaahay agtiisa waa siyaadaysa midna siyaadimayso waa xadiiska saxiixa nabiga sallallahu alayhi wasallam man tasaddaqa bi'ijli tamra timir wax u dhigma ruuxii sadaqaysta min kasbin tayyibin kasab halal xaqiisana ka sadaqaysta wala yaqbalu Allahu illa tayyiban ilaahay halal mooye wax kale maba aqbale ruuxii timir wax u dhigmo halal sadaqaystay ilaahay gacanta midig buu kaga gudoomaya markaasuu alla u kobcinaya ila ay buurta uxud kala ekaato xabadii timirta ah min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaa'ika humul mud'ifuna wa illam yusay usi socoto buurta uxud bay ka weynanaysa laakiin waa goorma waa markaad ilaahay wajigiisa ula jeedo dan kalena aadan lahayn macna allahu sheegay halgu amaana iyo yani nin madaxa meesha jooga iyo halgu arkiyo berita halgu badiyo iyo maya wala tamnun tastakthir ba nabi lagu yiri sallallahu alayhi wasallam saasi macna fa atisi dhal qurba dhawaanshaha midka u saaxiibka xaqqa wa xaqiisa si wal miskiina miskiinkana xaqiisa si wabna as-sabili jidka wiilkiisa waxa laga wadaa ruuxa socotada oo sahaydu ka go'day asagana macna xaqiisa si rabbi subhanahu wa ta'ala dalika ka
oo dadka in xaqooda la siiyaa ayaa khayrun khayr badan lilladina kuwibu u khayr badan yahay yuriiduuna doonaya wajha allahi ilahay wajigiisa doonaya dan kale aan wadanin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna kuwa laban laabay almuflixuuna kuwa liibaanay iyaga waxayna adduunya iyo aakhiraba dadka liibaano dantoodii gaadhay wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min riban siyaada riban siyaadaad ruux siisa maxaad u siinaysa liyarbuwa inuu siyaado daraaddeed kaa aad bixisay fii amwaalinnaasi dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku siyaado 100 baad bixisay kii aad siisay xoolihiisa isagoo ku dhex jira 100kii baad rabtaa halkaa intuu ku siyaado 150 inuu ku noqdo amwaalinnaasi dadka xoolahooda dhexdooda inuu ku siyaado daraaddeed oo isagoo siyaado allu wata lagu siiyo falaa yarbuu ma siyaadaya midka niyada iyo qasadka lagu bixiyey cinda allahi ilahay agtiisa siyaadi maayo sadaqa ilaahay intuu aqbalay la kobcinayo oo la badinayo la labanlaabaya ma ah haddaad waxaad rabtay heshayna ahlan wasahlan haddaad weydayna waad qatanta adduunya aakhira waa qaday wamaa shayga aataytum aad siisaan oo min zakaatin sadaqa ah waxaad siisaan dadka khalqiga siisaan oo sadaqa ah turiiduuna xaala aad doonaysaan wajha allahi ilaahay wejigiisa aad doonaysaan qasadkuna uu yahay ilaahay dartii un fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almudcifuuna kuwa laalaabka u saaxiibka ah labanlaabidda kuwa u saaxiibka ee loo labanlaabayo waa kuwaasuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala marka saas wey sadaqadu haddii ay noqoto ilaahay dartii ayna noqonina cadaab baa lagu mudan haddii ay ilaahay dartii noqotona darajaad jannaa lagu mudanaya halkaasaa lagu kala baxaya waa kaan kusoo marnay suuratu lbaqara yani waxa weeyaan aakhirkeeda ayaan kusoo marnay axkaamta ku saabsan sadaqada iyo shuruuda ilaahay ku aqbalo iyo waxa laga ilaalinaya halkaasaan faahfaahinteeda kusoo marnay macnaha allahu aladii khalaqakum uma razaqakum uma yumiitukum uma yuxyiikum allahu alladii midka way khalaqakum idin abuuray markaad imaanayseen uma kadibna razaqakum idin irsaaqa uma kadibna yumiitukum idin dilaya markaa cimrigiinu dhammaado uma kadibna yuxyiikum idin soo noolaynoo dib idin soo celin doona hal min shurakaa'ikum ilaahiyadiinna ka mid ma yahay man mid yafcalu samayn kara min daalikum kiinaa xaggiisa min shayin shayna ka samayn kara intaa la soo sheegay shurakadiinna mid wax ka samayn kara ma jira subxaanah alla nasihidiisa laga nasaho xumaan oo dhan wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaadoo ka nasahan yahay yushrikuuna lala wadaajinaya alla subxaana wa tacaala allah abuurka khalqiga abuuray lalama wadaagin isagaa irsaaqoo masruufa lalama wadaagin isagaa dilo oo idin dili lalama wadaago isagaa idin soo noolayn doona lalama wadaago intaa mid ka mid a shurakadiinnu ma samayn karaan halna abuuristii hore ma samayn karaan maya addoommada ma irsaaqi karaan oo intay roob u keenaan dhulkana wax mauga soo saari karaan maya ma dili karaan warkii cimrigoodu dhammaado maya dib ma u soo celin karaan maya maxaad ku falaysaan marka maxaad ka daba joogtaan oo ku falaysaan oo caabudaysaan intaa midna haddayna samayn karin yacni waxa weeye intaa midka samayn kara baa sidiisaba la caabudaa oo rabbi noqon kara intaa midnaba midkaan samayn karin oo dhagax meed yaalla ah ama wadaad qabri galay ah ama khalqi iska daciifa ah waxba ha ka raadsan waxba ma qaban karo intaa midna hadduusan samayn karin bal muxuu kugu biirin isagii baaba qaawan waxba haysanin saas macna allahu alladii midka way khalaqakum idin abuuray uma kadibna razaqakum idin irsaaqa uma kadibna yumiitukum idin dilaya markii cimrigiinu dhammaado uma kadibna yuxyiikum idin soo noolayn doono idin soo celin doono hal min shurakaa'ikum shurakadiinna ka mid ma yahay man mid yafcalu falaya min dalikum kiinaa xaggiisa min shayin shayna ka falay yacni min dalikum kiinaa xaggiisa lasoo sheegay min shayin shaynaba fali karaya macnaha yani waxay minta dambe waa zaa'ido wey man yafcalu cid samaynaya min shayin shaynaba samayn kara min dalikum kiinaa lasoo sheegay xaaluu ka mid yahay shaygu subxaanahu alla nasihidiisa wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna lala wadaajinayo dahara waxaa muuqday alfasaadu fasaadkiibaa muuqday fi lbari yani bariga dhexdiisa walbaxri iyo baxriga dhexdiisa bimaa shay sababtii buu ku muuqday kasaba ay kasbadeen aydinnaasi dadka gacmahoodu ay kasbadeen
liyudiiqahum muxuu u muuqday liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo daraaddeed alle bacd alladii liyudiiqa alle inuu dhadhansiiyo darteed hum khalqiga inuu dhadhansiiyo bacd alladii kii qaarkii camiluu ay sameeyeen walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan markaas. macnaha waxa weeye dahara alfasaadu fasaadka waxaa laga wadaa laba tafsiir baa jira laakiin midun baan marayna. fasaadka waxaa laga wadaa waxyaalaha ka dhacaya dhulka korkiisa oo dhibaatooyinka abaaraha cudurrada dhulgariirada yacni waxa weeyaan maaragtay nabadgelyo darrada dagaalada dhibaatooyinkan dhulka korkiisa ka dhacayaay ee meel walba ka muuqday horta bini aadamku dembi ay galeen unbay ku timid bimaa kasabat aydi nnaas dunuubtaad gasheen baa keentay waa natiijo ka dhalatay dembigaad gasheen. maxaad natiijadaa looga dhaliyoo dhibaatadaasi u muuqataa sababta keentay dembigii haba noqdee maxaa fasaadkan iyo dhibkan muuqdaay muxuu u muuqday wuxuu u muuqday rabbi wuxuu doonayaa wixii aad shaqaysateen qaarkii in laydin dhadhansiiyo kulligii mahoo intiisii badnaa maalin dambaa loo dibdhigay oo aakharuu ku kaydsan maalinkaasaa laydin dhadhansiin doonaa laakiin qaar baa la soo hormariyey waxaan badnayn oo yar ayuu alla soo hormariyey. haddii kulli laydinku abaalmarin lahaa maba aydaan jirteenba dhulkaba maydaan deganaateen mana aydaan noolaateen laakiin waxoogaa baa la soo hormariyey. danta laga leeyaha maxay tahay lacallahum yarjicuun inaad noqotaan baa la rabaa inaad noqotaan oo isgarataan. ilan haddaad barwaaqo uun ku jirtood iska uun barwaaqadaada uun ku noolaato khaladkaaga ma garan kartid laakiin khaladkaagii baa lagu tusaya. waxaa lagu leeyahay colaadan dhacday iyo dagaaladani waa dembi aad gasheen maxaa la rabaa soo noqda. abaarahan dhacay iyo biyo la-aanta iyo roob la-aantu maxay ku timid waa dembi aad gasheen xalku muxuu yahay soo noqda. somaarti waa baraarujin. cudurradan iyo balaayadan adduunka baabi'inayay waa dunuub aad gasheen see looga bixi karaa soo noqda alla subxaana wa tacaala usoo noqda oo isaga usoo laabta. marka fasaadkan dhulka korkiisa ka dhacayo oo dhan bini aadamku wuxuu shaqeeye wey waxaana lagaga bixi karaa in allihii khaladka laga galay rabbi subxaana wa tacaala in la raaligeliyo dib loogu noqdo saa unbaa waxaa lagaga bixi karaya si kale lagama bixi karayo macnaha saas weyaan. kulamaa macaasidiiyo dunuubtu badato dhibaatooyinkuna dhulka waa badanayaan macnaha. dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri beriga iyo baxriga ayaa laysku khilaafsanyay. mufasiriinta salafka intooda badan waxay leeyihiin albaru waxaa laga wadaa saxaraha alfayaafi dhulka bahgooyadahe saxarahae baadiyaha ayaa laga wadaa albar. baxrigana waxaa laga wadaa magaalooyinka waaweyn. marka fasaadku baadiyihii iyo saxarihii iyo banaanadiina waa gaadhay magaalooyinkii la deganaana waa gaadhay labadaba waa ka muuqday. sidaasay mufasiriinta salafka u badan yihin. qaarna waxay leeyihin maya beriga caadiga ha la dhaho baxrigana badda ha la yidhaha oo sidooda ha loo daayana mufasiriinta qaar baa macna. ayib dahara waxaa muuqday alfasaadu fasaadkii baa muuqday fi lbari beriga dhexdiisa iyo walbaxri baxriga dhexdiisa fi lbari yani waxa weeye baadiyaha iyo saxaraha dhexdiisa walbaxri iyo magaalooyinka waaweyn dhexdooda intaba fasaadkii waa ka muuqday. bimaa kasabad waxay kasbatay dartii ayuu ku muuqday aydinnaasi dadka gacmahoodu waxay kasbadeen dartii. waxay gacmuhu kasbeen waxaa laga wadaa waxay dadku sameeyeen oo dunuub ah. maxaa uu fasaadkaasi u muuqday oo macnaha ciqaabta timid ah maxay u timid liyudiiqahu inuu dhadhansiiyo daraaddeed alle hum dadkii galay ama khalqiga inuu dhadhansiiyo bacda aladii kii qaarkii camiluu ay sameeyeen dembigay galeen qaar ka mida ayaa ciqaabtiisii la dhadhansiinaya. intii kale aawo waa intii badnayd aakharay u dibdhigantahay macnaha lacallahum waxay mudan yihiin markaa yarjicuuna inay noqdaan oy ka soo laabtaan. macaasidu marka fasaadka dhulka waa iyaga waxaad arkaysaan dhib iyadaa keensanaysa. saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan sal ly slam inuu yidhi laxaddun tuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumtaruu 40 sabaxan. hal xad oo ilaahay xuduuddiisa ka mida oo dhulka lagu oogo ayaa dadka dhulka degan u khayr badan 40 waa beri inuu roob u do-o halkaa xad oo dhulka lagu oogay baa uga khayr badan buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh. sababtu maxay tahay 40 roob da-ay subxood doog unbuu soo saari dooguna berritaba wuu ingegi. laakiin xadda ilaahay dhulka korkiisa lagu oogaya alla leeyahay waxay xaddu keenaysaa in dunuubta la joojiyo sooma oo dunuubta laga cabsado. dunuubtii haddii laga cabsadona maxaa imaanaya
dhulkii inuu barwaaqoobo oo noloshii barakowdo oo nabadgelyo la helo oo la dego oo caafimaad la helo oo barwaaqo la helo xuduudaasi waxay ilaalinaysaa macaasidii bay dhowraysaa macaasiduna hadday dhowrsanto meesha ka baxdo barwaaqa la gaadhay waa ka xadiiska nabigeena ku asaxay sallallahu alayhi wasallam nabi ciise markuu yimaado oo dajaal dilo oo gadaal dambe yaajuuj iyo maajuuj soo baxaan oo yaajuuj iyo maajuuj ilaahay intuu dixiri ku soo saaray eber noqdaan nabi ciisena uu mu'miniintii kooxdii mu'miniinta uu hogaaminayo oo markaas uu shariicada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhulka ku maamulay yani waxa weeye doofaarku dilaya saliibkan iyo macatabku jabinaya dadka laba mid ama soo islaama ama waa laydin dili wax ka dhaxay male jizya meeshuu ka saaraya nabi ciise markaa nabigu uu yani dhulka maamulayo oo shariicada ilaahay ku maamulayo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam dhulku wuxuu soo saaraya barakadiisii buu soo saaray markaasa rumaanka xabad rumaan ah ayaa waxay deeqaysaa koox dhan oo rag ah qolofteeda korana inta saa loo istaajiyo ayaa waxaa harsanaya koox dhan oo rag ah waa qolofta yartee rumaanka aad aragteen limaada laana way barakowday maxaa barakeeyay sharciga ilaahay baa dhulka lagu maamulay nabi ciise hogaaminaya mu'miniinta Soomaali hal neef oo ari ah ama geel ah ayaa caalihiisu waxay deeqaysaa koox dhan oo dad abay deeqaysaa waa la maalaya maba dhamaanaysa waa la maalay waa la lisay maba dhamaanaysa sababtu maxay dhulkii baa barakoobay oo macaasidii baa baaba'day shirkigii baa baaba'ay fasaadkii baa baaba'ay dhulkii baa barakadiisa soo saaray Soomaaliya saas daraadeed baa nabigeena xadiidka Bukhari iyo Muslim ku yaala nabigu wuxuu yiri faajirku markuu dhinto waa laga raaxaystaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam Sooma dambiiluhu markuu dhinto dhulka dhaafo waxa ka raaxaysta dhulkuna waa ka raaxaysta khalqiguna waa ka raaxaysta oo maxay dib inugu hayaan balaayadan taata ilaahay caasiriyay subhanahu wa ta'ala intay dib inugu hayaan ma ka wareysanin waxa dib ina gaaray oo dhan macaasin baa keenaysa iyo fujaarta iyo dambiilayaasha Soomaali marka fasaadku wuxuu keena macaasidu waxay keentaa dhulku inuu kharibmo daacada ilaahay oo la adeecana waxay keentaa inay noloshu barakowdo oo meel walba khayrku u gaadho ayay keentaa saas daraadeed sababka barakada keenaya ku dhago oo sababta fasaadka keenaysa ka fogaada iyo macaasida saas leena baraya macna qul wa'ada nabiyu siiru sa'da fil ardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduru fiiriya kayfa sidabay kana ahad caaqibatu alladina kuwi ciribtooda min qablu horreeyay kaana waxay ahaa aktharuhum intooda badan waxay ahaayeen mushrikiina kuwa alla xal wadaaji fa aqimtosi nabiyu wajhaka wajhigaagi liddiini diinka ku toos diinkii alqayyim ee toosna min qabli an ya'ti intaysan imaanin yawmun maalin intuusan imaanin maalinkaasoo laa maradda celin lahu isagu uusan u sugnaanin min allahi xagga alla uusan uga sugnaanin yawma idin maalinka ayay yasaddacuuna qaybsamayaan yasaddacuuna waa dildilaaca la yidhahda ama falfaliiranka laakiin waa qaybsan baa laga wada maalinkaasay qaybsamayaan say u qaybsamayaan waata man kafara ciddii kufrida fa calayhi korkiisa ayuu ahaaday kufruhu kufrintiisu waman ciddii camila sameeya saalixan camal wanaagsan ruuxii sameeya waman camila ciddii sameeya saalixan camal wanaagsanna falianfusihim nafafyaalkooda ayay yamhaduuna u gogol xaadheen ciddii camal wanaagsan samaysana naftooda unbay u gogol xaadheen oo meel u hagaajiyeen liyajziya alladina wuxuu saa u yeelay liyajziya inuu abaal mariyo daraaddeed alladina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min fadlihi fadligiisa wax ka mida inuu ku abaal mariyo innahu alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla warbar dhulka socda wax fahma fiiriya bal ummadii idinka horreeyay waxay ku dambeeyeen intooda badani mushrikiin bay ahayd shirkigaas halaagay baa laga wada waa sababtii halaagooda keentay mar hadday sidaa tahay adiga diinka toosan wejigaaga ku toos diinta toosan laazim tawxiidka shirki la'aanta khuraafa la'aanta cibaadada ilaahay toosna daacada laazim baa leeyahay intaysan imaanin maalinkaasoo wax celin kara aysan jirin xagga ilaahay haddii laga celin waayo ma xag kala laga celin karaa xagga ilaahay laga celin maayo xag kaloo celin karta ma jirto xagga ilaahay haddii laga celin waayo maalinkaa isaga waa maalinta qiyaamade maalinkaasaa la qaybsami doonaa waxaa loo qaybsami doonaa dadkii kufrigii iyo gaalnimada laga kari waaday iyo macaasida kuwaasi kufrigoodii iyaga korkooda unbuu ahaaday nin kale uu dhibaya ma jiro ruuxii camal saalixa la yimid oo ishagaajiyeena ruuxaasi isagoo unbaa lafihiisa meel u hagaajinay yamhaduuna gogol xaadh weeyaanoo adiga unbaa lafahaaga meel u islaaxinay meeshaad degi lahayd cadaabka ilahay saad uga nabadgeli lahayd gurigaad geli lahayd cuntadaad cuni lahayd
xaasaskii macnaha wax way shahwadaada ku gudan lahayd adiga unbaa wax hagaajisanahaye alla maada wax u tarin cid kalood wax tartayna ma jirto marka adiga un yani waxa weeye adigu un taa ku talagalo hamoodi inaad cid kale wax u tarayso macnaha rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxay u qaybsamayaan oo dadku u qaybsamayaan inuu alla abaal mariyo dadka iimaanka iyo camalka saalixa sameeyey fadligiisa qaar ka mida inuu ku abaal mariyo macnaha intay la yimaadeen keliyata la siin maayo labanlaab iyo fadli iyo dheeraad ilaahayna waa la siinaya allahna subxaana wa tacaala gaalada ma jecel hadduusan gaalada jeclayn mu'miniintu jeceli saas macna gaalada ma jecla laakiin mu'miniintu rabbi jeclay subxana wa tacaala qul waxaad leedahay nabi maxamed siiruu socda fil ardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sidee bay kaana ahaaday caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu sidee bay ahaatay min qablu horreeyey kuwii horreeyey say ku dambeeyeen halaag bay ku dambeeyeen sababtu maxay ahayd waad sababtay kaana waxay ahaayeen aktaruhum intooda badan mushrikiina kuwa alle wax la wadaajiyay ahaayeen shirkigaasaa baabi'iyey shirkiga iska jira marka fa aqim toosi wajhaka wejigaaga liddiini diinka ku toosi diinkii alqayimi ee toosnaa min qabli an ya'tiya intuusan imaanin diinku waa toosanyo waa jid toosane jidkaas wejigaaga ku toosiyo ku hagaag wey macnaha min qabli an ya'tiya intuusan imaanin yawmun maalinkaasoo laa maradda wax celiyaay lahu isaga uusan u sugnaanin ama laa maradda celin lahu isaga aynan u sugnaanin min allahi xagga alle laga celin male yowmaidin maalinka ayay yasaddacuuna dildilaacayaan oo qaybsamayaan wey man ciddii kafara kufriday adduunka markuu joogay fa calayhi korkiisa unbuu ahaaday kufruhu kufrigiisii lala qaybsan maayo waman ciddii camila samaysta saalixan camal wanaagsan oo adduunka soo shaqaystay falianfusihim nafafyaalkooda ayay yamhaduuna u gogol xaadheeyeen markaa naftooda unbaad u gogol xaadheenoo meel bay islaaxsadeenoo iyaga unbaa meel hagaajistay liyajziya inuu abaal mariyo daraaddeed aladiina kuwa aamanuu sameeyey waxay ugu gogol xaadheen liyajziya inuu abaal mariyo daraaddeed alle aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min fadligiisa wax ka mida inuu ku abaalmariyo inahu alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla wa min aayaatihi ilahi aayadihiisa waxaa ka mid an yursila inuu diro alriyaaxa dabaylaha inuu diro mubashiraatin xaala yihiin kuwa bishaaraynaya waliyudiiqakum iyo inuu idin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa qaarkeed inuu idin dhadhansiiyo iyo walitajriya inay socoto darteed alfulku doomuhu biamrihi amarkiisa inay ku socdaan iyo walitabtaquu inaad raadisaan min fadlihi fadligiisa inaad raadisaan walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan walaqad arsalnaa xaqiiqe waxaan dirnay min qablika hortaa nebi maxamedow rusul baan dirnay ilaa qawmihim qowmkoodii baan u dirnay fajaa-uu rusushii way yimaadeen hum qowmkiibay u yimaadeen bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaabay ula yimaadeen faintaqamnaa waan aarsannay min aladiina kuwii baanu ka aargoosannay ajramuu dembiga galay wa kaana waxaa ahaaday xaqan xaq waxaa ahaaday calaynaa korkanaga waxaa xaq ku ahaaday nasru lmu'miniina mu'miniinta uhiilintooda ilaahay aayadihiisa waaweynee qudradiisa iyo awooddiisa kutusaya waxaa ka mid a yacni dabaylaha diritaankooda dabayluhu iyagoo bishaaraynaya mubashiraatin yacni waxay bishaaraynayaan naxariista ilaahay ay hor socdaan ee roobka ah ayay dadka ugu sii bishaaraynayaan taasi waa midoo dabayluhu bishaaray wadaan kow talabaadi waxa waliyudiiqakum min raxmatihi inuu naxariistiisa idin dhadhansiiyo qaar ka mid a oo dabaysha socotaay roobka naxariista ilaahay ah ee dhulku ku qaboobahaya wax kaga soo baxayaan dabayshaa hor wada dabayshaasi naxariis ilaahay bay idiin xambaarsanta ta kaleeto waxa weeye dabayshii waxaa ku socota doontii walitajriya alfulku biamrihi doomuhu waagii hore waxay ku socon jireen dabaylahay ku socon jireen dabayshaasaa wadi jirta hadday dabayshu istaagto doontu ma socon karto walitajriya alfulku biamrihi doomuhu inay socdaan dabaylaha faa'iidooyinkooday ka mid tahay oy wadaan fadliga ilaahayna markaa aad raadisaan oo dee doontii markay badda idiin dhex marto ood u kala gudubtaan qaaradaha iyo waddamada u kala gudubtaan dabayshiina ay wado fadligii iyo tijaaradii iyo ganacsigii iyo iyadaa sabab u ah intaasoo dhan dabayshaa wadda way macnaha iyo inaad shukridaanoo intaad faa'iidooyinkaa garataan rabbi u mahad celisaan subxaana wa tacala nebi maxamedow hortaa baanu rusul dirnay oo qowmkoodii baan u dirnay mucjizooyin cadcad bay ula yimaadeen way beeniyeen baa meeshaa ku jirta kadibna kuwii dembiga galay baan ka argoosanay bu rabbi subxana wa tacala mu'miniintiina waa u helinay wey
مؤمنين إنا أهيل لنا حق كرك النجا سارم بو أهو رب سبحانه وتعالى يعني الله اسكو لازمي أو اسكو واجبي إنه مؤمنين تأهيلي قال هذا نتشبيه تاسمع معنا قال هذا إنه بعض مؤمنين تأهيلي حق إلهي إسساري إلى يومنا هذا وساري ضد مضن إن الله لي أو إيمان كربكي هدي له أو أي صباحا نصر إلهي سبحانه وتعالى وملؤون تاسمع معنا قال هذا إنه تشبينا يا رب سبحانه وتعالى وكجوان لكن وإن له ضد إيمان كربكي oo dadkii ballanqaadka lahaa ee loo ballanqaaday dadka in la helo way macna saas weeyaan tayib ومن آيات الله آياته waxa kamida an yursila inuu diro الرياح dabaylaha diritaankooda mubashiratin xalayhim kuwa bishaaraynay walidiqakum iyo inuu idin dhadhasiyo min rahmatina hadiistiisa qaar kamida inuu idin dhadhasiyo daraadeed oo waa roobka ay xambaarsantay iyo wali tajriya inay socoto daraadeed alfulku doomuhu bi amrihi amarkiisa dartii inay ku socdaan iyo wali tabtaqu inaad raadisaan darteed min fadligiisa qaar kamida inaad raadisaan wala'allakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan oo Allah subhanahu wa ta'ala uga mahad celisaan dabaysha socotay iyo faa'iidooyinka inoo leedahay ayaa wax laynaga tusay walaqad arsalna haqiiqa waan dirnay min qablika hortaan rusul baan dirnay nabi maxamed ila qawmihim qawmkoodi baan u dirnay fajaa'u waymadanhum qawmkii bay u yimaadeen bil bayinati mu'jizooyinka ala adaabay u yimaadeen fantaqamna waan arsalnay oo waan argoosanay min alladina kuwi baan ka argoosanay ajramu dambiga falay waa madaxdii hogaaminaysay iyo qowmkoodii la socday shirkiga galay wa kaana waxa ahaaday kaana wuxuu ahaa haqqan mid waajiba علينا كركنجا حقا مد سجن بوها علينا كركنجا نصر المؤمنين مؤمنين تهيلين توض مؤمنين تإن نهيلنا لبتسيناي حق كركنجا سارم بوها برب الله سبحانه وتعالى الله الله الذي مدك ويرسل درا الرياح ضبيلها درا فتثير مركزي كعسى ضبيله سحابا ضرورة أي كعسى فيبسطه الله وفديا ضرورتي في السماء حق سراء يكفديا كيف سي الله سيدي يشاء ودونه أي وقفديا ويجعله وحو كدغا يجعله وحو كيلا ضرورتي كسفا قبله فترى مركا واحد أركيسا الودق دبعدي يروكي أو يخرج بحيا من خلاله ضرورة لحدة كسو بحيا فإذا قرتي أصابه وكو أصيبه به دبعدا أمر روبك ودقي قاسي من يشاء عدو دونه من عبادي أدومدي سكمد مركو الله كو أصيبه أوسيو إذا مركبهم يجوا يستبشرون كوا بشاري سنة فرح هي بشارة هي الريرين أي بالله وإن كانوا وحي أهاين من قبل أن ينزل إنتان لدتشين كهر عليهم كركودا من قبله هرتي وحي أهاين لمبلسين كوا قوسطي بأهاين فانظر بالفير إلى آثار رحمة الله نحريست إلهي بالرات كذا فير كيف سيداب يحيي النوليا الأرض دلك بعد من موتها لمشدد كذب بلطان فير إن في ذلك أرنك دحدي سوحا كسغا لمحي إن ذلك كاغاس انت سمين ياي لمحي الموتى كوة انت متك صول نولينوي وهو إساقنا على كل شيء كستكركي سقدير متكي أوضا أو كروي رب سبحانه وتعالى بلو في صدر يعني الضبيشي وولي لك حليا الله سبحانه وتعالى ضبيل بصدرية حقيقة صوبحنا ضبيل حلي مية تقانا خزنة ديك صوبحان وحبك قرن منه إذا صعوته بينه هو أهانا قلنا في سنينا وتا ضروري هنا وينوض لكن ما لا يكسعته يا مامولية يعني ما قرنين ضبيلها إلهي بصدرية سبحانه وتعالى إلهي بصدرية مركزي وحي كعنيسا ضروريه مركي كعيسى الله حق سرو ضرورها كف دينية سيدي جوجل أو كلا كركا صار الله في دينية سي الله سيدو دونو الله في دينية سيدي أبو في دينية سيدو دونوي ميدك بوكاغا في دين مرحق آدين مرحق قاسي شرتا مروي علوستهاي مروي فضودهاي سي الله سيدو ربو إلهي في دينية سبحانه وتعالى كيف يشاء مركزه وحكر لجيا ضرورتي في السنيد بالك الجوجين وقبل الله لقد لجيا الكاس ضرور باكم مغتكوه قبل هل كان قبل باكم مغت هل كان قبل باكم مغت قبل له كركا وجوجا قبل الله نقولس markay gabal noqoto waxaad arkaysaa fataral wadqa dhibicdi baad arkaysaa oo dhexdeeda ka soo baxaysa dhexdeeda dhibicdi baa ka socota oo ka soo baxaysa macna taas aad arkaysaa markii dhibicdi alla uu ku asiibo cidu doono adoomadiisa kamida markuu siiyo waxaad arkaysaa adoomadii markiiba farxay oo faraxa iyo reereynta iyo waxay sameynayaan iyo ilaa roob baa u daay kii xoolo lahaa xoolihiisii buu leeyahay wallahi barwaaqo kii beer lahaa beertii buu abuuranaya
kii biyo la'aanaha biyihiibuu ka cabaya dhulkiibaa biyo u wada galeen waa wada faraxsan yihiinoo shalayna way khushuucsanayeen waa murugsanayeen maantana farax bay la dhimanaya saas way macna horaan buu rabbi ilaahi subxaanahu wa tacaala intaan la soo dejinin soo dejintaa horteed hadda roobkan da-ay ku faraxsan yihiin wax yar ka hor intuusan soo degin way kuwa quustay bay ahaayeen sooma wayba quusteen oo waa la isdhiibay oo waa laga rajo go'ay oo ninkii beer lahaana malaha sanadkan waa abaar buu ku talagalay kii adduunyo iyo xoolo lahaana wuxuu yidhi wallahi sanadkan intayba waa ku dhaafaysa ayagoo quustay oo rajo qabin ayuu roobkii imaanay daqiiqada kadibna waa kuwa faraxsan yihiin waa rayraynaya bal fiiri baa la yidhi naxariista ilahay raadka ay reebtay fiiri raadka naxariista ilahay fiiri subxana wa tacala dhulkiiyo quruxda iyo ubaxa iyo dooga iyo maryaha uu labistay aad la yaabayso addoommadiioo say u faraxsan yihiin xayawaanaadkii iyo xoolihii oo dhergay beerihii oo baxay bal ilaahay naxariistii uu keenay raadka ka dhashay bal adigu fiiri sida uu bal dhulka u noolaynayo fiiri markii dhulku dhintay oo nabaad guuray kadib siduu u nooleeyo fiiri sidaasoo kale allahaa dhulka nooleeyey isaga ayaa wuxuu yahay markaad dhimataanna midka idin soo noolayn doona sidaas si la mida ayaana noolaynta dambana u dhici doontaa oo laydin soo celin doonaa wax walbana alla waa awoodaa subxaanahu wa tacala allahu alle alladii midka way yursilu dira alriyaaxa dabaylaha dira fatuhiiru markaasay kicinaysaa alriyaaxa dabaylaha dira dabaylaha isaga ayaa dira fatuhiiru dabaylihii waxay kicinayaan saxaaban daruur fayabsutuhu daruurtii alla wuu fidinayaa fi samaa'i xagga saruu ku fidinaya kayfa yashaau si alla siduu doono u fidinaya si alla siduu doono wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa alle daruurtii wuxuu ka yeelayaa kisafan gaballo waa la qaybqaybinaya fataraa waxaad arkaysaa alwadqa dhibicdii iyo roobkii yakhruju isagoo baxaya min khilaalihi saxaabka iyo daruurta dhexdeeda isagoo ka soo baxaya fa idaa goortii asaaba uu ku asiibo alle bihi roobka man yashaau ciduu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida markuu ku asiiboo gaadhsiiyoo siiyo idaa markaaba hum iyagu yastabshiruuna kuwa farxaya oo bishaaraysanaya wey wain kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan la dejinin ka hor calayhim korkooda min qablihi hortii waa ta'kiid min qablidii hore unbaa la adkaynaya wain kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan la dejinin calayhim korkooda min qablihi hortii roobkaa hortii waxay ahaayeen la mublisiina kuwa quustay bay ahaayeen fandur bal fiiri ilaa aathaari raxmat illah naxariista ilaahay raadkeeda bal fiiri waxay ka tagtay fiiri kayfa sideebuu yuxyii u nooleeyaa alarda dhulka uu u nooleeyaa bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dhulku markuu namaad guuray kadib bal fiiri arrintaa fiiri ina dalika kaagaasi allahaasi wey macnaha la muxyi lmawtaa kuwa dhintay midka nooleeya wey kuwa dhintay isagaa nooleeya kaa sidaa wax usoo maamulay oo dhulka nooleeyay ayaa kuwa dhintayna oo idinka ah idinsoo noolayn doona wey wahuwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey walain arsalnaa haddaanu dirno riixan dabayl haddaanu dirno oo fara'awhu ay arkaan dabayshii oo fara'awhu ay arkaan dhe walain arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl oo fara'awhu aharkii iyo raadkii naxariista ay arkaan waa nabaadkii soo baxay musfaran asagoo jaallo noqday ladalluu waxay ahaanayaan markaa min bacdihi gadaashiisa yakfuruuna kuwa kufriyay noqonaya fa innaka adigu nebi maxamedow laa tusmicu wax ma maqashin kartid almawtaa kuwa dhintay walaa tusmicu ma maqashin kartid assumma kuwa dhagahala adducaaa u yeedhidda ma maqashin kartid idaa goortii wallow ay jeedsadaan mudbiriina xaalayihin kuwa daba jeedinay wamaa anta adigu matihid nebi maxamedow bihaadi lcumyi kuwa indhahala mid hanuunin kara can dalaalatihim baadinimadooda kama hanuunin kartid lumidda ay lumeen kama hanuunin kartid in tusmicu ma maqashin kartid ilaa man cid mooye yu'minu rumaynaya biaayaatina aayadaha naga rumaynaya oo fahum iyagu muslimuuna hogaansan oo ilahay u hogaansan subxana wa tacala markii dhulkii barwaaqo noqday oo quruxdiisii la yaab waxoogaa kadib waxaa soo baxaysa haddana dabayl kale waa dabaylihii xagaaga iyo jiilaalka iyo dabaylihii baa soo dhacay dabaylihii markay soo dhacaan waxaad arkaysaa doogii quruxda badnaa oo intuu isbedelay midabkiisii jaallo noqday wuxuu isu diyaarinayaa markaa oo usii socdaa inuu ingego sooma markay arkaan raadkii roobku ka tegay oo nabaadkii quruxsanaa ah isaga oo jaallo isu sii bedelaya
waxay ku kufrinayaan nicmadii ilaahay barwaaqadii shalayta waa la iloobay saas barwaaqadii shalayta waa la iloobay ingeygan maanta ay ingegtay kufri bay bilaabeen gaalnimay bilaabeen shalayta nicmadii ahaydna dadkii waa halmaamay dadkani marka waa dad macangegiin ah waa dad quluubtoodu dhimatay iimaan male oo iftiin qalbigooda kuma jiro oo waa gaalo waxba ma maqashin kartid laa tusmicu lmawta waa kaan soo marnayo bimacnaa waxaa laga wadaa mawta alquluub dadka quluubtoodu dhimatay oo iimaan ayna lahayn oo maydka tahay waxba adigu ma maqashin kartid ilaan qalbi nool baa wax maqle kuwa dhagahalagna u yeedhidda aad u yeedhaysa ma maqashin kartid markay sii jeedsadaan ruux dhagala oo sii jeedsaday maanta oo dhan war hebelow haddaad ku haysa ma ku maqlaya ya hadduu kugu soo jeedo waxoogaa waxaaba laga yaabaa bishimahaaga iyo inuu wax ka fahmo laakiin hadduu kaa sii jeedo dhagana laayahay hebelow maanta haddaad ku haysa ma ku maqlaya maya gaaladu waa saasoo kale ha isku dhimin baa laliya nabiga sal lay slam ta kale ku mid indhala kuwa indhahala oo haddana lumay oo habaabay habaabidiisa adigu ma hanuunin kartid oo jidkii ma tusi kartid baa leeyahay yacni wuu indhala yahay jidkiina waa ka habaabay maanta dhan haddaad intaad u tilmaanto tidhaahdo war halkaa ka leexo oo halkaa aad oo jidka halkaa ka mar oo meeshaa waad lunsan tahay oo kaynta xaggaa ka mar oo maantana haddaad ku akhrido indhala yahay lunsanna yahay miyuu garanay in gacantaba la qabta mooyaane si kale jidkii kuma heli karo gaaladu waa saas isdhiin baa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka waa nooc nabiga lagu dejinaya aayaadkan macnaha waxaad adigu wax maqashiin kartaayo wax kaa qaadan un dad aayaadka ilaahay rumeeyey oo qalbigoodu ku noolaaday hoggaansan oo diyaar u ah ilaahay inay u hoggaansamaan dadkaasaad wax maqashiin kartaa oo wax kaa qaadanayo wax kaa aqbalay amaa kuwan quluubtoodu dhimatay dhagahoodiina xidhan yihiin indhana aan lahayn habowsanna kuwaasi waxba kaa qaadan maayaan waxbana ma maqashin kartid baa nabiga sal lay slam wala in arsalnaa haddii aan dirno riixan dabayl haddaanu dirno oo fa ra'w ay arkaan hudaasi waxay u noqonaysaa aharkii aharkii roobku ka tegay ay arkaan oo dooggu soo saaray ah musfaran asaga oo jaallo noqday ladalluu waxay ahaanayaan markaa min bacdihi gadaashiisa yakfuruuna kuwa kufriyay noqonayaan fa inaka adigu laa tusmicu ma maqashin kartid almawtaa kuwa dhintay oo quluubtoodu dhimatay walaa tusmicu ma maqashin kartid assumma kuwa dhagahala adducaaa u yeedhidda dhawaaqaagii u yeedhidaada ma maqashin kartid idaa goortii wallow ay jeedsadaan mudbiriina xaalo ayaan kuwa daba jeedinay wamaa anta adigu ma tihid bihaadi lcumyi kuwa indhahala mid hanuunin kara can dalaalatihim nuunsanaanta iyo baadinimada ay ku jiraan kama hanuunin kartid in tusmicu ma maqashiin kartid ilaa man cid mooyaane yu'minu rumaysan biaayaatina aayadaha naga rumaysan oo fahum iyagu muslimuuna kuwa hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan ah allahu alle alladii midka way khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarra idinka abuuray uma kadibna jacala yeelay min bacdi dacfin taagdarra gadaasheeda wuxuu yeelay quwatan xoog iyo taag iyo awood uma kadibna jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog kadibna wuxuu yeelay dacfan taagdarro iyo washaybatan ciro yakhluqu alla wuu abuuri maa yashaau wuxuu doono wahuwa allana alcaliimu midka wax walba u ogaansho badan wey alqadiiru midka awoodda leh rabbi subxana wa tacala meelaha maraaxiishaynu maraynaa laynoo sheegay alla wuxuu idinka abuuray taagdarro taagdarradu waxa weeye yani dhibic mani ah ma taag bay leedahay waad ka gudubtayoo xinjir dhiig ah taag ma leh cad yaroo hilib ah taag ma leh waxoogaa bini aadan ahaan baa lagu suurayoo meeshanaad jiiftaa taag ma lihid waad soo baxday oo ilmo yar baa tahay oo bannaankaad joogta waa lagu koolkoolinaya taag ma lihid bisad baa ku cuni karta wax kale iskaba dhaaf taag ma lihid taagdarradaasaa marka laydinku abuuray taagdarrada kadibna alla wuxuu yeelay xooggaasi muxuu yahay waa dhallinyaranimadii shabaabnimadii waad xoogaysatay caqligaagiibaa xoogaystay jidhkaagiibaa xoogaystay waa xoog baad sheeganaysaa xooggaana waxaa ka dambayn doona tabardarro oo iyo ciro wada socoto timihiina waa caddaadeen jidhkiina waa tabar dhigay boolbool baa lagu kala furfuray isma haysatidba heer waxaad gaadhaysaa marka dambe aad fadhigaba ka kici weydaba ood musqusha gaadhi weyda caqligaagiina suu sii socda heer wuxuu gaadhayaa xataa uu kala garan waayo biyaha iyo caanaha dabka xataa uu ka gudi kari waayo bal u fiirso markii hore meeshii laydinka bilaabay oo tabardarrada ah baa haddana ku noqoteen maxaa layna barayaa marka adduunyadan inayna jiraynin baa ilaahay ugu talagalay subxana wa tacala
haddii daa'imitaan iyo jiritaan loogu talagalay maalinba maalinta ka dambaysaad kasii xoog badnaan lahayd soo ma marka aad sii qaadataba waad sii xoogaysan lahayd adduunyada haddii loogu talagalay inay daa'imayso laakiin meeshani meel la joogayo maahe war ha islu goonina oo maalmaha waxoogaaga aad xoogga leedihiin oo dhallinyaronimada iyo tabarta iyo awooddu idinku jirto ha lugu-in oo ha kadsoomine ilaahay daacadiisa uga faa'iidaysta maalmahaas yar tabardaraa idiin dambayn doontee baa macnaha laydin baraya allah subxaana wa tacala wax walba isagaa xoogaal u ah allahu alla midka waya khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarri midka idinka abuuray uma kadibna jacala wuu yeelay min bacdi dacfin taagdarri gadaasheed quwatan awood iyo xoog buu yeelay uma kadibna jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog iyo awoodda gadaasheedana dacfan yani tabardarri iyo washaybatan ciro wada socoto yakhluqu alla wuu abuuraa maa yashaa wa huwa alle alcaliimu midka ogsoon wey wax walba alqadiiru midka awoodo wey wa yowma maalinka taquumu saacatu saacaddu ay istaagayso yuqsimu way dhaaranayaan almujrimuuna dembiilayaashu waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaysan nagaanin hayra saacatin saacad waxaan ahayn kadalika sidaas kale ayay kaanuu ahayeen yu'fakuuna kuwa runta looga jeediye wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilmi cilmiga la siiyey waliimaana iyo iimaanka kuwaasi waxay dhaheen laqad labistum xaqiiqee waad nagaateen fii kitaab illah alla kitaabkiisa dhexdiisa yacni ilaahay qoraalkii uu qoray dhexdiisa waxaad iyo wixii ku qornaa waxaad ku nagaateen ilaa yawmi albacthi isa soo saaridda maalinkeeda intii laga gaadhayay baad nagaydeen ood joogteen way macna fa haada kani yawmu lbacthi yani bactiga iyo soo bixinta maalinteedii wey walaakinakum lagusa noqoya kuntum waxaad ahaydeen taclamuuna kuwa aan ogeyn fa yowmaidin maalinka laa yanfacu ma anfacaya aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey macdiratuhum cudurdaarkoodu anfici maayo walaa hum mana aynan ahaanin yustactabuuna kuwa raalligelin la weydiisto maalinta ay qiyaamadu timaado kuwii dembiilayaasha iyo gaaladii waxay odhanayaan wakti yar saacad ka badan maba aanan jooginba xaggee adduunyadii ama intay qabriga ku jireen baa dhici karta wixii oo dhan baaba la yaraaday adiga markay mushkilo weyn kugu timaado mushkiladaa wixii ka horraysay oo dhan waad halmaami wax saacad ka badan maanaan joogin bale rabbi wuxuu yidhi sidaa maanta runtii looga jeediyey baa adduunka markay joogeenna runta looga jeediyey shalayta runtii bay qiri waayeen adduunka markay joogeen maantana runtii bay garan la'yihiinoo laga jeediyey oo intay adduunka soo joogeen ama qabriga soo joogeen bay garan la'yihiinoo waxay leeyihiin saacad unbay ahayd sidaa hadda ay looga jeediyey runta bay adduunka markay joogeenna looga jeediyey macnaha saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ayagii markay dhahaan sidaa ayaa dadkii cilmiga iyo iimaanka lahaa ayaa waxay odhanayaan war niman yahow ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa waxaad ku nagaydeen yani kitabka waxa laga looxul maxfuud ama cilmiga ilaahay waxaad ku nagaydeen ood joogteen adduunyada ama qubuurta ilaa maalinka laysoo saaray laga gaadhay tanna waa maalinkii isaga ahaa laakiin idinkaa waxaad ahaydeen dadaan waxba garanayn maalinkaa isaga a ma anfacayo kuwii dulmiga sameeyey cudurdaarkoodu ma anfacayo raalligelinna la weydiin maayo ama noqosho la weydiin maayo inay ka noqdaan khaladkii walaa hum yustactabuuna laa yus'aluuna alcutba wey cutbada waxaa la yidhahdaa raalligelin adiga khalad haddaad gasho soo raalligelin kama bixisa marka intaad dad khalad ka gasho ruuxaad khalad ka gashay uu kuleeyahay warniyo iraalligeli oo igu sabeen xidh inuu kaa raalli noqduu doonaya sooma war iraalligeli hadduu kuleeyahay waa maruu diyaar u yahay inuu raalli kaa noqdo sooma hadduusan ku weydiisaninba ma diyaar buu u yahay maya la weydiisan maayo war ilaahay raalli geliyo ka soo noqda khaladkiina la weydiisan maayo maxaa yeelay in raalli laga noqdoba lama doonayo saas macnaha ayib adduunkaa la rabaa in raalligelintu adduunyada ku anfacaysa laakiin maalinkaa waxba anfici mayso wa yowma maalinka taquumu saacatu saacaddu ay istaagayso yuqsimu way dhaaran almujrimuuna dembiilayaashii waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaynan nagaanin hayra saacatin saacad wax ka badan saacad waxaan ahayn adduunka ama qubuurta dhexdeeda kadalika sidaasoo kalea kaanuu ay ahaayeen yu'fakuuna kuwa la jeediyo oo runtii xaqa looga jeediyo wa qaala waxay yidhahdeen markay leeyihiin saacad ka badan maanaan joogin qasadkay ka leeyihin miyaad garanaysaan qasadkay ka leeyihiin waxa weeye yacni way ku cudur daaranayeen oo waxay leeyihiin wakti dheerba hadda nalooma kaadinin haddii wakti dheer naloo kaadin lahaa hade malaha waanu isdaba qaban lahay saasay dooneen marmarsood bay dooneen inay ka dhigtaan taas daraaddeed baa waxaa la yidhi cudurdaarku anfici maayo wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waliimaana iimaanka laysugu darayay waxay yidhaahdeen laqad labistum war waad nagaateen fii kitaabillahi alla kitaabkiisa dhexdiisa waa kitaabka acmaashu ku qoran tahay baa la yidhi
ما لوح المحفوظ كان ليري ما علمك إلهي بأديك قرالك إلهي قري هي حكم كيسة واحد كنا جيدين إلى يوم البعث إسا صاري دمانين كذا أنت اللي قاعدة يبادنا جيدين أتشوفتين فهذا كان يوم البعث إسا صابحينتي إسا صاري دمانين تديوي مدنا هذا بيحشوكتان ولكنكم كنتم واحد ساهيدين لا تعلمون كوا أن وحبا أجين وحجرين إن بعض هيدين ساز الدنيا دي بتكون كتسنتين فيومئذ مالك لا ينفع أنفع ما الذين كوا ظلموا ظلم جسمي شرك قال لماذا كل انتي معذرتهم عذر دار كود وحتر ماي مدة قامن بانو جوجنو هدينا لو كادين لها مرها واسدبا قبل لهن وانا لسود دجيي معذره داس waxba anficmayso wala hum mana aynan ahan yusta'tabuna raali gelin kuwa la weydiistana maysan ahan la dhihi maayo war ilaahi raali geliyo oo xaal mariya la dhihi maayo saas maxaa yeelay in laga raali noqdo laba rabo walaqad darabna haqiiqan waanu cadaynay linnaas dadka waxaanu cadaynay fi hada alquran kan dhaxdiisa min kulli mathalin mahma kasta ayaan ugu cadayn qissa kasto ajable ayaan ugu cadayn wala in jiitum hadad ula timaado nabi maxamed bi ayatin ayad mu'jiza hadad ula timaado la yaqulanna waxay dhihi alladina kuwa kafaru kufriyay waxay dhahayaan in antum matihidin maxamed iyo inta la socoto illa mubdiluna kuwa baadil u saaxiiba mooyaan wax baadil u baad wadataan xaq ma wadataan bay dhahayaan كذلك سيدا سوكلي سيدا كوا قلوب تضل الله ضمولي أي يطبع الله ألا أوذى على قلوب الذين كوي قلبي يضوذ كركيدا لا يعلمون وحبا أغين فاصبر صبر بلني محمد اسكت القاد إن وعد الله يبوها إلهي والنصر يقوش كو يبوهي حق بالحق أوي وإيمانيا ولا يستخفنك يينك فض ضيسن الذين كوا لا يوقنون أن يقينين من وعدك إلهي إيا آخرتنا كوا لينا كفض ضيسان بلي قرآن كمحامة ما إيا قصة عجبا الله سبحانه وتعالى كعدي بلو في رسالك خريب محا أدونك سؤال انتي رسول دعي محا تصالى لينا قسي محا إيمان دونا صوص عدا محا تصالى لينا قسي محا تصالى عقيدة كساب سنة توحيدك لينا سي تصالى أخلاق كساب سنة لينا سي tusaale adduunyadan iyo say u dhamaanaysay iyo siday riwaayada beenta u tahay maxaa tusaale leenaga sii quraanku wax walba lagu cadeeyo tusaale iyo qisa cad badan nabiga waxa lagu yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin haddaad aayad kasta iyo mucjizo kasta ula timaado waxay uun ku oranayaan iyo baadil baad wadataa aydiya dadka kula socday xaq ma wadataan aayad kasta uu keen mucjizo kasta soo hordhi kuma yeelayaan baa leeyahay macna sidaas kuwa qulubtooda loo awday oo loo xiray ayaa kuwa waxba garanaynin ilaahay qulubtooda u xidha subhanahu wa ta'ala yaani qalbiga inta la awdo la xidho waxba gali maayo wala gali maayo xumaana ka dhixmayso mar hadduu arrinku saas yahay marka waxba ka yeeli maayaane madax adaygoodi iyo dagaalkay kugula jiraan iyo diidadooda isaga sabir iska dulqaadale nabiga sallallahu alayhi wasallam yaboha ilaahay inuu ku hiilinayo uu yabohay waa xaq way suganta iyayna ku fududaysanin kuwani rabbiga subhanahu wa ta'ala waxba yaqiininin kuwan aan cilmiga iyo yaqiinta haynin iyana ku fududaysan maxaa laga wadaa iyana ku fududaysan yaani si fududiyayna ku leexsan saas yaani dad baa iska fududo markaad fududahay ruuxa la ruux kasta intuu tunka ku saarto mabdiisa ku gelin kara sooma sheeka yar baa lagu ka haysan waxooga waa lagu afmiishaarayn waa iska raaci marka iyana ku fududaysanino nin fudud ha noqonin ku adkaysa lagu leeyahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay iyo xaqa macna walaqad darabna haqiiqa waan cadaynay linnaas dadka waxaanu cadaynay fi hada alquran kan dhaxdiisa min kulli mathalin qissa kasto ajab labaan ugu cadaynay mahma kasta oo wax ku gartaan waan ugu cadaynay rabbiga subhanahu wa ta'ala wala in ji'ta hadad u timaado hum iyaga hadad ula timaado bi ayatin mu'jizo la yaqulanna waxay oranayaan alladina kuwa kafaru kufriyay in antum matihidin muhammad iyo kuwa la socdo illa mubdiluna kuwa baadil watamoy wax kala matihidin baadil baad wadataan xaq ma wadataan bay oranayaan ma qirayaano marna kuma yeerayaan kadalika sidaas oo kale kuwa qalbigooda loo xiray ayuu yatba'u allah alla u awda oo u xira ala qulubi alladina kuwi qalbiyadooda korkooda la ya'lamuna an waxba ogeyn kuwa jaahiliinta xaq aan ogeyn saasoo kala qulubtooda xaq looga xira فاصبر صبر باليدي كل كيالي ما يعني دبك كاسو غاري اسغا صبر ان وعد الله يبوها الهي وغوش كو يبوها يلبتا حق وايمان سقبل لي ولا يستخفنك يينك فضوديسن الذين كوا لا يوقنون اي يقينين يينا صفدود كودوسنين سغنو او كو ادكيسا لي حق اسغا معنا اخر اي يقينين وعد الهي ان يقينين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم